السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتين soo dhawaada fadlan haddii aan ugu cusubtiin subscribe noo saar beelkana fursi oo noqdo daawadaha koowaad hadaa hore noola joogtana like jeerto xageena soo dhawaada ayaa idin leeyahay asxaabteen cusub iyo asxaabteen horeba mininka waa mininkiini maasha Allah maanta waxaan doonayaa inaan waxyaabo aniga aan ku faa'iiday ay idin faa'iidiyo idinkana maasha Allah oo la talin fiican idin noqoto maasha Allah way jiraan gabdhiga fikir fiican maxay heetood laakiin waxaan isleeyahay kuwa kaleeta ayaa ka faa'iideysan doona insha Allah ta'ala mar walbana waxaa noo wanaagsan hadaynu nahay dumar inaan is dhiirigelino marba haddii aad tahay hooyo maxay heetood caruur u joogto gurigana kaliga aad ka shaqeynaysid marka waxyaabo fara badan oo ii shaqeeya ayaa jira insha Allah ta'ala waxa weeye marka hore waxa sameynaysaa maalin walbo maxay heetood waxaad dejisanaysaa budget ayaa dejisanaysaa marka hore torosaad u firfircoonaato habeenkii markaa seexanayso adkaarta akhriso adkaarta iyo quraanka akhriso ku seexo maasha Allah subax markaa salaad subax soo kacdo oo salaadaada dukato ha ku laabanin jiifka salaad subax jiifka lagu laabto waxaad ka qaadaysaa caajis ayaad ka qaadaysaa maalintaas dhan ma firfircoonaanaysa salaad subax markaa dukato soo adkaartaada soo akhrisato hore u soo bax habeenkii markaa seexanaysidna waxaad seexataa adigoo jikadaada kaliin ku tahay oo alaabta aad dhaqatay tirtiratay jikadii nadiif ayadoo ku taho subaxdii markaa soo gasho shaqada bis u baahan tahay quraac samayska markaa hore ka soo gasho quraacdaada haddaad hore ka samaysato maasha Allah aydan ba 7 subaxnimo la gaarin ayaad ka bixi kartaa jikada ilma yar haddii ku joogaan ilmahaada ayaad nadaafadaynaysaa waad dhaqdhaqaysaa afka ka cadeynaysaa maasha Allah quraacdooda ayaa siisanaysaa haday dugsi ku aadi lahayn iyo haday iskuul ku aadi lahaayeenba marka waxa ku soo bixi karta marka haduusan baby yariisa kugu xariirin saacad waa seexan kartaa intaadan qadada karin ka hor saacad waa seexan kartaa maasha Allah ilmaha dugsi iskuulka marka u kala dirsato waxay nafaas waa qaadan kartaa hadaa rabto waxbaad akhrisan kartaa hadaa rabto waa seexan kartaa marka barqad markay tahayna qadada hore ka karso maasha Allah qadada markaad ka degsato adiga 12 kula dhaafin qadada markaa ka degsato u soo jeeso maxay ahayd gurihii ina clean gareysato maasha Allah intayna ciyaalka ku imaanin gurihii hagaajiso markaa gurihii hagaajisto nadiifsato maasha Allah ilmahaada markay imaadaan oo salaadaba laga soo baxo qadadooda dhab ku sii qadada markaa siisato ha seexa ku seexdaano markay ku seexdaan adigana la seexo hadaa doonto wax kala qabso hadaa doonto meesha danka laheed aad soo hadaa guriga ciyaalkaaga reebay wax qofkaaga reebayso heshid maasha Allah marka dhaqitaanka ku soo haray dharkana waxa loo yeeshtaa maalin ayaa loo yeeshtaa maalin walba hadaa dhaqdo waad ku caajisaysaa waqti far badan uu ka lumayaa waxa sameynaysaa adii qofti ciyaal yar leh dhar badan waa wasaqoobayaan 2 maalin kadib ama isbuuci 2 jeer ama dhaqo dharkaada maasha Allah dharka markaad dhaqatana hadaad haysato qasaalada isku qalajisato waqti badan ba kaaga biximayso laakiin inta badan gabdhaha ma haystaan gabdhaha xitaa waxa jir gacanta ku dhaqi karo maalinkaad gacanta ku dhaqaysid dharkaagana qadada iyo quraacda isku xiji quraacda markaa kariso qadada ku xiji 2 saac ama 3 saac mad ka soo bax jikada soo nadiifso dharkaada hor ka bilaabo hadaa qasaalad ku dhaqanaysidna aad qadada karsanaysid baa qasaaladaada ku dhaqan kartaa marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay waqtiga aad ugu faa'iideysta casirka markii la gaarana casirka markaad dukato quraankaada akhrisan kartaa duhurkii ayaad casiriyahaada hore u sii samaysan kartaa quraankaada akhriso maasha Allah jawi degan ayaad ku noolaahaysaa insha Allah ta'ala soo dhawaada ayaa idin leeyahay